inuu ilaahay muuse sallallahu alayhi wasallam af Soomaali kula hadli jiray intaas u guda galin waxa muhiim ah horta inaanu ka bilawnaa taariikhdiisa muuse iyo adeerkii fircoon oo taariikhyahanka adduunka gabi ahaantood bas ku soo afgarteen inuu luqadii uu ku hadli jiray fircoon iyo boqortooyadiisa iyo ancient Egypt ee tahay luqadda ugu dhow maanta af Soomaaliga oo waliba ah luqadaha kusheetiga kuwa ugu farac weyn ka taariikh weyn kana da weyn Oromaha Eritrea Anfarta oo iyagu laftigooda isku dalada kusheetinimada soo wada galayaanba taariikhdana inay dhab tahay waxa nagu sii xoojinaya kitaabka Ilaahay oo nagu sheegaya inuu Muuse baqdin uu ka baqay adeerkii ku dhawaaqay dhulka Ilaahiday baan u baxsan doonaa Allah inaan ka helo xagga hanuun dhulka Ilaahiday oo loo turjumo badana maanta land of Punt Ilaahay baan dhulka nagu sii xaqiijinaya inuu yahay dhulkii xadda barakeysnaa oo laga soo saaray ambiyo fara badan oo kamid ahaa Shu'ayb alayhi salaam oo Ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa nin maadibana ama af Carabi noqonaya Madian oo ka tirsanaa qoomiyadda la dhaho Madians sadaradeed waxa waliba ku sii cadaanaysa in ilaa iyo dhulkaas oo dhanba af Soomaali lagu wada hadli jiray waayo Muuse alayhi salaam ku dhulkaas soo dagayba judhiiba way isfahmeenba ayakoosan u kala baahneen turjumaana cadeynta laftigeeda waxaad ka helaysaa xataa inuu markii uu dulqarnayn uu tagay isagu meesha qoraxda ku dhacdo oo ah Maghrib ama Morocco maanta dhulkaas inuu toos birti ku qaraacay asaga laftigiisa kamid ahaa qolooyinka hoos galaya qoomiyadda maadibaanka ama waliba lafta tumaalka ahba ceeb maaha Suleymaan alayhi salaam isagu laftigiisa wuxuu ahaa nin tumaala oo waxa ku sii cadeynaysa isaga laftigiisa inuu ku dhashay dhulkan Madianska wuxuu ka guursaday aakhirkii gabadhii Araweelo oo ragga xaniyaha ka siibi jirtay oo taariikhyahan kala markii dambe uu arshigeedii soo qaaday oo sidaas u toobad keentay qofka kaliya kugu haysta Soomaali hadda tahay taariikhdaas waxa weeye Etoobiyaanka oo dhahaya Queen Sheba laakiin taariikhda ma xusayso sida ay u xusayso Araweelo taariikhda Soomaaliyeedba hase yeeshee Ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu sheegayaa inay hadda qoomiyadii sharafta lahayd ee maadibaanka markay qaabileen Muuse alayhi salaam ee diintii dhaqankii iyo wixii meesha ka jiro dhan bareen asagoo waliba af Soomaaliga kula hadlaya ayuu ka bacdina Ilaahay buur ka tusay iftiin yar uu isagu arko kaliya buurtaas markuu ugu dhaqaaqay uu u dhawaaday waxa lagu yiri waxaad soo gashay dhulkii barakeysnaa ama meeshii barakeysneede kabahaaga sib baqdin baa ku dhacday aakhirkii wuxuu dhahay Ilaahayo iskee ka tus markaas lagu yiri isma ka tusi kaliya buurta ba xamili kareen laakiinse muhiimadda aan uga jeedo waxa weeye luqadaas uu ku hadlayay ma ahayn luqadii Ilaahiye waxay ahayd luqad uu ku fahmo Muuse wuxuu ku hadlayay luqadii adeerkiis oo ahayd af Soomaali ama af Soomaaliga meesha ka bilaabmataba oo ahayd sida loo turjumo maanta luqadda ancient fircooninta af Soomaali ugu dhow yihiinba qorax raa iyo waxyaalo fara badanba haddii aad la yaaban tahayna sabab maad u maqli weeday abtirsigan hore ama haddii aad aragtay muuqaalkan oo lagu dhigdhagayo aayadahana lagu jeesjeesayo waxa noo cadeynaysa kaliya inuu kitaabka Ilaahay mar walba wixiisa dhagoobayaan ee uu xaq ku taagan yahay waa Ilaahay baa noogu sheegay inaysan dadkan bid'aadanka badankoodu aamineen kitaabka sidiisa ilaa intaysan wax ay qacmooda ku sameysteen la barbarsimin ku walaaqin runtiyo beentii ka bacdi waxaas ka dhigtaan diinba tusaalaha ugu wanaagsan waliba waxa weeye abtirsigan waxay ku bedesheen abtirsiga Yuhuuddu qacmooda ku sameysteen ee u bixiyeenna Table of Nations oo ah inuu Nuux alayhi salaam intuu gabdhihiisii mid kamid ah intuu khamri la cabay ama cabsiisayba ka bacdina la galmooday oo afar wiil la baxsaday afarta wiilna ee midab ahaan maanta adduunka wixii kala kalara oo midaba abtirsigoodii ku wada biyo shubanayaanba aabaha labaad ee adduunka ayuu bixiyeen Nuux alayhi salaam dadka su'aalaha jircsan ee maskaxdoodii ka soo fikirin bal laakiinse lagu shubay la imaan doonana waxaan weydiinayaa kullee waxaad oran doontiin Muuse wuxuu ahaa nin bani Israa'iila wuxuu ku hadli jiray Hebrew waayo Yuhuudda ayaa waxa soo warisay xadiida ayaa la soo raaciyayna laakiinse Hebrew hadduu ahaa ku hadli jiray luqadaas goormuu bartay Fircoon isaga laftigiisa markaa nin bani Israa'iila oo luqadaas ay ku wada hadli jireen maya aqligal ma ahanba waayo taariikhyahanka laftigooda ayaa sheegaya inuu Fircoon ahaa nin Soomaaliya ku hadli jirayna af Soomaali bidaartaas sanka yar dhuuban wajiga yar dhuuban waxaas oo dhan wada arki kartay xitaa sawiradiisa ilaa maantadaas haddana dadka dhihi doona Shu'ayb alayhi salaam isagana muusan ahayn nin Soomaaliya ama maadibana oo qoomiyad ah ee wuxuu ahaa nin Carab ah qoomiyadaas Madian waxay ahayd meel ku taala
carabta boqortooyo ka mid ah markuu haddaba muuse u tegay ayaka luqadee bay ku wada hadleen ma af carabi bay ku wada sheekaysteen gorbuu muuse bartay af carabi ma af hebrew bay ku sheekaysteen gorbay carabtu barteen hebrew waxaasoo dhan waxaa burburinaysa keliya inuu ilaahay noogu sheegay ba dhulkii ilaahyada oo gaaladuna qirsan yihiinba inay u bixiyeen the land of bunt taariikhduna ay xusayso oo ah east africa iyo ilaa nortiga oo ah dhulka hadda maanta soomaalida iyo kusheetigu u badan yihiin waliba waxaa ku sii cadeena inay dadkan dad ilaahay yaqaan yihiinba abtirsiga Soomaaliyaashaba reer Sheekh Isaaq yaa u diidan inay yihiin maanta dadkii Ibraahim alayhi salaam uu inankii kamid ah Isaaq u dhalay Ciise alayhi salaam reer Ciise maanta Djibouti xagee ka keenay magacaas iskala soo baxeenba masaajidada ka furan Eritrea Ethiopia iyo Soomaaliya waxay ka furnaayeen dhulkaas yuhuudan hadda maanta sheegtay inay yihiin bani Israa'iil iyo carabtan reer miyiga oo laba gool u yaqaanaan cadcadko oo diin haysanba inay dadkan muslimiin ahaayeen iska daa inuu af carabi yahay luqadda ilaahiye oo ku doodaysiin ilaahay baa doortay af carabiga oo ka dhigana luqadda lagu hadlayo qiyaamaha waxaan idin sheegaynaa inay ambiyadu gabi ahaantoodba ku hadli jireenba af Soomaali cid taas beenin kartaana inaysan jirin yuhuud mooyaane iyo abtirsigooda qof aaminsan